وحوصو دريا ملك فينفق فيه الروح روح دي بالو أبوريا ولو أفوفيا ملك قاسو يؤمر بأربع كلمات أفر كلمة بالأمر يا الأمر يا أفر كلمة بكتب رزقه إنه قف كان رزقه سقر محوعني دونا ما حلال با ما حرام با مكود بتون دونا مصيفوز بيكو إماد دونتا ملو قصب دونا ملسك سين دونا وحاسو دم بوغريا مرك رزقه سمركو قرأ تبتنا وأجله أجسسي بوقريا غور مدلنيا انتبو كدلنيا xilligeebu dhimanaya intaas oo dhan baa la qorayaa marka intaas markii la qoro mana ka hormaraysid mana ka dib dhicaysid mana ka hormarayaan saacadii mana ka dib dhacayaan si walba qofku naf jecel yahay ilaa tiisi gaarto ma dhimanayo adduunka oo dhan baad isku daa in la dilo qofkaas ma dhimanayo qofba waxaa arkaysaa in la dilaa la rabaa 5 sano xabsi lagu heenaya maxaa loogu heenaya أجسسي واحد كدمنته قفنا على سواق أنا سلمش اللي قد جلار الله أركا أجسسي كاس مش كنا ماتي مركه من الدروق سمسو أو حلي اللي قلت لك الحل أنتم كمد بدأ يصير من كور مريسيد مركه محلورنا يا أجسسي سقر عظيم وعمله عمل كيسي مع عمل وناكسم مع عمل حنا أنت والغرية وشقي قفكني مع أهل النار با أو سعيد مسوا قف سعيد أهل الجنة لوضن ولا قرية وبقول الله تمك على وشك جهوية وكجرت على قرية حصدم نبي هذا الكوتحير فوالله الذي لا إله غيره إلهي أن إلهي كالجرم بان كل نارتي إلهي حق لو عابد بان كل نارتي إلهي كل جز بان كل نارتي إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة متكين إنتو كون كان جوجو حسمينا يعمل وناكسان ودتك أهل الجنة اللي يقانو وقف إسك صلاة بدن وإسك صوم بدن وحجنا يا وصدق سنيا عمل خير ودنبو سمينا يا حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع مركو الجنة ودوادو أو وحير وقد منتهي ذراع ودود صومها waxa looga cabiraya waxa way meeshii gaarsiisinta dhawaasha laga wadaa markii jannada u dhow yahay inuu galo fayasbiqu alayhi alkitabu kitabki markii oo uurkooda isku jiray la qoray baa hormarayo fayamalu bi'amali ahli an-nar markuu dhimar rabo amal ahli an-nar sameynaya fayadkhulaha dabatan naarti buu galaya 60 sano buu amal wanaagsan soo sameeyay intaas soo socday markii dhimashadiisa dhowdahayna amal xun buu sameeyay kaas buu ku dhimanaa والعياذ بالله وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار متكينا وحو سمينا يا عمل كأهل النار وحال وحي فسقيا أو النار لغو قلي لها أو حما يبو سمينا يا لما شقك لما قبطبا صلاة مجر صون مجر خمرو بإسكا عبايا وإسكا زيني سنيا وحبو دعيا وحي عمل أهل النار لو قلت لك قالوا أي سميان بو سمينا يا حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع مركو نارتي ولو يهي أو حبا أجرين بدوان شدرتين فيسبق عليه الكتاب كتاب كيبا أهر مريو أهي إنو أهل الجنة أهي فيعمل بعمل أهل الجنة عمل كي وناكسناي بو سمينيا فيدخلها مركز الجنة دي قليا إلى الجنة إلى النقي حديث كان وحاورين البخاري مسلم حديث كان وحديث قيمة بضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام قيمة بديهين لكن حديث كان مع النووي باكو جرو وحنا معقول هدرتان زمن كان جوجنا iyo dadka mulxidiinta islaamku wax ka sheegay inay xadiistaan oo kale ee dadka ku shaki ku gelinayaan in qofkii la yiraahdo war adigii awalba haddaad ahlu naar heedna waa la qoray haddaad ahlu janna heedna waa la qoray maxaad isku daalinaysaa oo camal u sameynay haddiiba qofkii wanaagsanaa intaas oo dhan soo shaqaysanaa camal wanaagsan markuu dhimar rabayna ahlu naar loo bedelay dabata naarta galay maxaa faa'iido ku jirto tashwiisho noocan oo kala waa dadkii gaalada iyo dadkii munaafiqiinta ay ummadii dhex gelinaysa intaana ka gudbin baan jecelnahay marka
wax yar inaan bal xadiiskan ka hadalno. nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, qofka siduu camal wanaagsan u sameynayo markuu geeridii soo dhawaato baa camalkii alnaarka sameynaya, dabeetana naarta buu gala. qofkii xumayna camal xunso u sameynaya markuu dhiman rabo camal wanaagsan sameynaya asna jannadu gelaya. macadallah qof intaasuusan xumaan suu sameynaya hadduuba janno gala waa la gartay oo ilaahay fadligiisa bay ku ahaatay. laakiin qof soo wanaagsanay ilaahay miyuu dulminaya? waa may soo maaha. axaadiistan baa marka tashiish la gelinaya. nabiga soomali alayhi salaam qof baa camal wanaagsan sameynayo, culamada maxay ku macneeyeen fii maa yabduu, sida idiin muuqato. qofka masaajidkiibuu ku jiraa, salaadii buu ku tukanayaa, annaga maxaa noo muuqdo inuu tukanay soo maha, laakiin quluubtiis maa ku jirnaa ma ogin. waxa marka qofkan waa uu soomayaa, inuu soomayaa ujeednaa oo xalay suxurtay, afurna u fadhiyo, soonna uu ka muuqdo wejigiisa iyo araggiisa, annaga taas baa qiimeynayna soo maaha, ma uurkiisaan ku jirnaa. marka waxaa waay fii maa yabduu, qofka 60 sano oo uu camal sameynayay camalkaas wanaagsan, fii maa yabduu dadka wax sida u muuqato waay, bixasbi maa yaraahu nnaas, waa dadka waxay arkayaan baa loo eegayaa. marka qofkan 60 sano hadduu wanaag sameynay laakiin ay ka dadkan ha ku arkaan, ma janno umadan yahay kaas? soo camalkii naarta lagu gelay ma ah. marka meesha tashiirka ka jira kaas weeyaan. maxaa yeelay ilaahay wuxuu yihi wamaa kaana liyudiica iimaanakum, qofka ilaahay ma dayacayo. camal wanaagsan aad samayso oo intaanoo dhan soo sameynaysa ilaahay ma dayacayo. ilahay rajadiisa aad rajeynaysayna kaama wareejinayo. ee waxa laisku haysta hadda waxaa weeyaan bixasbi maa yaraahu nnaas, sida dadka arkayaan weeyaan. hadda intaa misla fahnay. qofka camalka soo sameynayo ilaa ay geeridiisa kasoo dhawaato, camal wanaagsan buu sameynaya, waa sida dadka u muuqato. kitaabkii baa ka hormarayane waa ahlu naarnimada loogu talagalay. waayo camal walbo sameysa haddaan horena uga soo hadalnay oon ilaahay dartiisa loo sameynin wax faa'iidaa uu leeyahay male. xilqooyinkii horaa uga soo hadalnay. waa run, acmaasha waa khawaatimta. qofka sekimada u dambeeya bay ku xiran tahay. haddii qofkaasi oo xilligaasi ka halaawdo oo qaatimo xumo ku dhinta, allah naga badbaadiye, oo ahlu naar weeyaan. qofkii qaatimad u wanaagsanaatana ahlu janno wey. laba nin baa saaxiibo aheyd baa layidhi, 2 nin baa saaxiibo aheyd. markuu mid nima rabay baa ninkii kale waxuu damcay inuu tawxiid ku qabto, war laa ilaaha illa allahu dheh, shib, war laa ilaaha illa allahu dheh, waa aamusan yahay. markaasuu warnii maxaa kugu dhacay? warnii waxaasaa sheegaysa ani ma rumaysni u dhahay. intaasoo sanana masaajidka kuwada tukan jireen, war sootaa qur-aan isla akhrisan jirnay oo cilmiga isla baran jirnay oo masaajidka aan ku wada tukan jirnay, aawo wixii camal wanaagsanaa samayn jirta waxaas dhan ma rumaysnayn buu dhahay. walciyaadu billah. sidii buuna ku dhintay khaatim maxamadii, ilaahna badbaadiyey. marka acmaasha maadaama ay khawaatimta tahay, laakiin marnaba ma suurtoobayso qofka idaa saara xabiibu rabbilcaalamiin laa yanqalibu caduwan lilah. qofka xabiibu rabbilcaalamiin marba hadduu noqdo, nadradii ilaahay ku dhacdo, marnaba inuuba khaatimada ka halaado maba suurtoobdaba, mana dhici karto. raxmadda ilaahay qofka mar haddii nadrada ilaahay ku dhacdo, naxariista ilaahay taabatahay, marnaba cadow ilahay iskuma bedeli karo. marka inuu qofka ictiqaado qof wanaagsan oo saalixa oo niyadaada hadday wanaagsan tahay, cabsi ah armo ilaahay khaatimada kaa xumeeya, ilaa naga badbaadiye, niyadaadaysan gelin. dadka waxaan ay tilmaamayaan waxa weeye waa dadka marka adduunka joogan camalkan ilaah u khaalisi jirin. nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sheekeeyey, calayhi salaatu wasalaam, markaasaa mid saxaabada ka mid wuxuu yihi yaa rasuul allah, maxaaba camal loo qabanaya? qofkii markuu dhalo intoosa dhalanba haddiiba inuu ahlu naar yaha la qoray, inuu ahlu janno yahayna la qoray, waxa la qabanaya maxay tahay marka? nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, icmaluu fa kullu muyasar lima khuliqa lahu. war shaqaysta oo camal wanaagsan la imaada, qof walba waxaa loo fududeeyey wixii loo abuuray. qof baa waxay u fududahay inuu salaad iska tukado, qof baa waxay u fududahay inuu maanta qur-aanka kitaabka jaamac akhriyo, qof baa waxay u fududahay inuu cilmiga raacdo, qofna maxaa u fudud in maanta musalsal iska daawada maanta oo dhanba.
dad heesay inuu iska daawado inuu caawa dhan ku dhafro inuu xafladaha aroosada aado inuu waaga ugu beriyo hadda salaada subax haddii la dhaho UN-kaa la iska raba waa u fududahay inuu xilli hore tago laakiin xilligii salaadii markii la joogo waa adag tahay soo ma masaajidihii waa iska cidlo guryihii baa la iska jijiifaa waxaasoo dhan in la bedelo wey qof walba waxaa loo fududayay wixii loo abuuray qofbaa maanta waxay la fududahay soo iska socdo maanta asuu iska toosday bal xoogaa gabadhan la hadal iyo waran walaale si intaa fiican tahay war naga taga leedaniyo way ceerinaysaa midna hal kelmadoo dhow number inta uga qaato gurigeeda tegi karaaba soo lama kala fududeen ninkan ilaahay baa dhooranaya xumaala lama rabo marka haddoo gaaraas la hadla maba kari karaba si walbo aftahan u yahay numberkaada keen ma dhihi karo waa ku adkaanaysaa midna asuu gesges u socdo wax rabo ka qaadanaa dabeetana ilaah naga badbaadiyo xumaan qofka marka xabiibu rabbilcaalamiin haddoo noqdo caado isku bedelayo ilaahayna waa wanaagsan yahay laa yaqbulu ilaa dayiba wax wanaagsan ilaah baa aqbalaa camalka yarkaa labada ragco sunnada tukanaysaba ilaah aqbalaya oo jecel yahay oo khaalisan lilaahi ah haddaad caawo dhan ku ragca tukanado ama sheekhan ha ku arka ama macallinkan ha ku arka is leedahayna wax aqbalaya ma leh khaatimaduna allah noo suubiyo adduunkana inta la joogo qofka wixii oo shaqaysto unba aakhirna la kulmaya laba nin baa waxaa la yidhi saaxiibo ahaan walaalo ahaayeen labada nin 500 oo sana nin ilaahay caabudi jiray ka kalena 500 oo sana ilaahay caasin jiray kor iyo hoos bayna kala joogaan markaasaa shaydaanatu imaado wuxuu yidhi ninkii ilaahay caabudi jiray ee meesha kore joogay buu wuxuu yidhi warheedhe dhimatay walaalkaa muddo maadan arag waa uu iska raaxaysanayaa waa kan meeshan buu iska baashaalayaa intaad inkaara kuu dhacday bal xilligaad toobad keenaysa ma fogay haddaaba iska toobad keena haddaa rabtide bal horta walaalkaa soo arago xoogaa yar la soo baashaal dhinacaada bal baasha kasoo cabarta oo iska soo khamirayso iska soo baashaal dabeetana iska imo iska toobad keen yaa kugu dhegan markaasuu yidhi wallahi waa run ogu horta daanta walaalkii u taga iska soo baashaalo xoogaa yar bal soo fiiriya xaalkiisa hadhow iska ima iska toobad keeno soo iska caadi ma ah sidii buu kusoo baxay ninkii kalena wuxuu is yidhi warheedha balaayo kugu dhacde intaanoo sanaad ilaahay caasinaysay xumaan muy hal wanaag ma aadan sameynin sidaanad isku dhaanteed bal walaalkaa u tago inta toobad keenteed ilaahay ku xirnow kanna waa u fuulay kanna u soo degay waddadii ka hormaaday dhulkiiba jaranjaradii baa la duntay meeshiina ku wada dhinteen kii hoose aadoo kheerka doonta muxuu noqday ahlujanna noqday kii wanaagsanaayo markii dambe xumaan doona muxuu noqday ahlunaar yacni saka kii u dambeeyey daqiiqadii u dambeeyey noloshoodii baa saas noqotay marka qof walbana wuxuu ku dhintaa lagu soo saaraa hadda waxaa laga yaabaa inay toobadna la fogaato berri baa toobad keenaya saa dambaa la toobad keenaya waxaasoo dhanna waa laga roonyaa qofka markaas inuu qofka toobad keena haboon maxaa yeele ninkan intaasoo sano camal sameynayay maanta hal maruu soo degay xumaan buu damcay bartii ku dhintay ilaa jash waa qoran tahay ninkanna wanaag toobadkeen buu islahay niyadii baa ilaa u qabtay